السلام عليكم ورحمة الله وبركاته soo dhawaada saaxiibayaal halkan waa maskax kobciye fashiyaal waxaan isku dayeynaa ama aan ku dadaalaynaa inaan bilowno koorso la xiriira blogging-ka iyo qaabka website-kaaga aad ugu xiran lahayd Google AdSense waxyaalaha lagaaga baahan yahay dabcan online-ka waxay ka caawinaysaa adigoo mataqaanaa waqti badan gelin inaad ka samayn kadib lacag joogto ah marka maanta waxaanu ka hadlaynaa Google AdSense waxa uu yahay iyo waxyaalaha lagaaga baahan yahay عاديا جوجل ادسنسي waa barnaamij xayisiis ah oo ku ogolaanaya in website-kaaga uu lacag sameeyo adigoo soo bandhigaya xayisiiska ay Google qabato Google saan ognahay waxa xayisiis u keensada oo dabcan ka codsada inay alaabahooda iyo servisyada ay qabtaan ay u xayisiiyaan shirkadaha caalamka Google-na waxay samaysaa dabcan xayisiisyadaas ay lacag kaga qaaday inay u xayisiiso ganacsigooda shirkadaha ay waxay samaysaa waxay heshiis la gashaa qolada website-yada dabcan maamulaha website-yada iska leh oo dabcan individualka iyo dadka kan mataqaanaa ku jira dabcan online-ka oo adigu iyo anigu aan ka mid nahay oo website-yada leh oo maamula iyagu u sameeyay program ah Google AdSense oo dabcan xayisiiskaas iyagu ay mataqaanaa lacag ku qaateen in website-kaaga xayisiiska la dul saaro dadkuna si ay ku arkaan xayisiiska kadibna qof kasta oo dabcan xayisiiska kili ku dhufta ama xayisiiska arka adiga ay ka siiyaan qadaadiic caadiyan qaabka Google AdSense ay u shaqeyso ama lacagta looga helo waa qaab noocaas ah dabcan waagi hore xayisiisku wuxuu ahaan jiray inaga Soomaali ahaan hadii aynu mataqaana ka cabir qaadano xayisiiska laba loo qaybiyaa midna waxa weeye waa digital marketing midna waxa weeye traditional marketing dabcan qofku hadduu ganacsi leeyahay inaga wali waxaynu u dhameeyay traditional marketing iyo ah qofka hadii uu ganacsi leeyahay waxaynu sameynaa waxaan u tagnaa idaacadaha iyo TV-yada iyo in meelaha aynu ka xayisiino laakiin caadiyan waa laga gudbay oo adduunku dabcan wuxuu isku bedelay digital ganacsigu wuxuu ka faa'iideysanayaa dadka tirada badan ee online-ka isticmaalaya dabcan halkaas mataqaanaa waqtigooda badan ku bixinaya in alaabtooda ay gaadho si ay suuq ugu helaan marka caadiyan Google saas u sameeyaa oo xayisiiskaas dabcan uu ku qaatay qandaraasyada ayuu qayb kamid ah lacagtaas wuxuu siiyaa dadka website-yada iska leh oo uu saarayo xayisiiska website-yadooda uu dul saarayo marka hadii aynu inta uga gudubno Google AdSense waxa uu yahay iyo qaabka uu mataqaanaa lacagta looga helayo waxa aynu guda galaynaa dabcan hadii aad samaysatay website ama blog maxaa laga baahan yahay in uu aqbalo Google AdSense macnaha aniga maxaa laga baahan yahay shuruudaha saan ognahay adduunka wax walba waxay leeyihiin qaacido iyo mataqaan iyo wada la raaco Google AdSense-na waxay dejisay sharci iyo wada la raaco si ay ku aqbasho Google AdSense-ga aad codsatay ay u aqbasho waxyaalaha ugu horeeya oo aad u baahantahay inaad iska fiirisid si mataqaanaa website-kaaga loo dul saaro xayisiiska ama aad u heshid Google AdSense approved waxa kamid ah horta in aad qodid high quality content waxa weeye waa inaad qodid qoraal mataqaanaa tayadiisu aad u sareyso oo dabcan headline-kii mataqaanaa headline-kii la hambarka beelnay oo aad u samaysid mataqaanaa ciwaano dabcan is-hoosyaal kala saadhid qoraaladaada oo san noqon wixii wax dabada iskugu taxan sidoo kale qodobka labaad aad mataqaanaa aad buuxinaysid si aad u codsatid Google AdSense waxa kamid ah waa inaad ka weyn tahay 18 sano caadiyan reer galbeedku ama gaaladu da'da ay ku qaangaaraan ee u qoran waa 18 sano marka hadii aad 18 sano ka yar dhahay dabcan oo aad ku qoratid in 18 sano aad ka yar dhahay already kuma aqbalayaan waxba isku daalan waxyaalaha kale oo ay fiirinayaan waxa weeye inaad haysatid organic traffic wax laga wadaa in website-kaagu ay soo booqdaan oo ay mataqaanaa uu helo views dad macnaha ka soo raadiya search engine-ka ama oo mataqaanaa goobaha wax laga raadiyo dad ka soo raadiya in website-kaaga sida Google oo kale in marka magaca website-kaaga intii lagu qoro ama ciwaanka aad qordhay intii lagu qoro dadku ay halka ka soo helaan ba organic traffic la yiraahdaa organic traffic dabcan waxa ka soo horjeeda waa fake traffic oo ah dabcan inaad intaad website-yada qaar tagtid aad fake traffic iibsatid oo boqolaal qof ka soo booqdaan Google AdSense way check gareynayaan kuma soo aqbalayaan sidoo kale waa inaad u hoggaansantaa oo aad mataqaanaa aad u hoggaansantaa
sharciyada Google AdSense sidoo kale shuruudaha laga rabo oo la rabo inaad buuxisid website-kaaga laga dhex arko waxa kamid ah in ugu yaraan qoraalada aad iyo waxyaalaha soo galinaysid uu ku jiro hal video ama hal mataqaanaa sawir ugu yaraan waa in laga dhex helaa waana ka badsan kartaa sida caadiga oo qoraalkaagu ama contentigaagu soo u noqdo mataqaanaa high quality waa in mataqaanaa aadan samayn wax copy paste ah example waa in mataqaanaa aadan soo copy gareen waxyaalaha kale dadku qortaan oo dabcan aad website-ka ku soo copy gareen taas oo lagu qabsan doono oo soo hoosgalaya mataqaanaa copyright-ka taasna kugu aqbali mayaan oo waxyaalaha aad qoraysid waa inay unique ahaadaan waxyaalo mataqaanaa unique ah oo aysan ku jirin ama aan laga helayn Google-ka oo ay dad aysan hore u qorin taasna insha Allah taala 10 gooniyaan ka soo diyaarin doonaa qaab sahlan anagoo isticmaalayna mataqaanaa AI-ga qaab sahlan oo u qori kardid content high quality oo haddaba unique ah oo aan wax copyright habeeraat aan lahayn sidoo kale waxyaalaha muhiimka ah oo website-yada dabcan lagu soo diido dadkuna ay fahamsaneen waxa kamid ah waa in website-kaagu uu leeyahay pages-kan waa in website-kaaga aad u samaysaa about dabcan waa in privacy policy uu leeyahay waa in contact us uu leeyahay waa in terms and conditions uu leeyahay 1 2 3 4 5 shantaas page waxa khasab ah in laga dhex arko oo laga dhex helo website-kaaga haddii shanta page qaar kamid ay ka maqan yihiin waxa guarantee ah in website-kaaga uusan soo aqbalayn Google AdSense sidoo kale waxa kaloo kamid ah shuruudaha aad buuxinaysid waa in website-kaagu uu domain leeyahay domain sida caadiga waxa la yiraahdaa waxyaalaha kan magaca gadaalka raacaya sida .com .net .so waxyaalaha noocaas ah baa domain la yiraahdaa dabcan halka waxa ka baxaysa website-yada subdomain-ka ah sida tusaale ahaan qardho.blogspot.com subdomain-kaas oo kale Google mataqaanaa awal way aqbali jireen laakiin sanadkan 2023 waxay sharci soo saareen in subdomain-yadii hore ee AdSense-ga la saaray ay samaystaan domain kuwa soo socdana aysan aqbali doonin sidoo kale waxyaalaha tricks-ka ah oo mataqaanaa dadka badanaa lagu soo celiyo website-yada iskale Google AdSense codsada ay ku dhibaataysan yihiin waxa kamid ah waa in aad qordhaa 20 article at least waa in aad qordhaa 20 article oo article kasta uu ka kooban yahay ugu yaraan 1000 words qaabkaas haddii website-kaaga aad mataqaanaa u habaysid oo u diyaarisid waxa 100% aan ku ballan qaadayaa in website-kaaga la soo aqbali doono insha Allah taala waxyaalaha aynu mataqaanaa ka caawin doono dhalinyaradeena waxa kamid ah in aynu kala qayb qaadano qaab walba oo lagu soo aqbali karo website-kooda aad baan salaamaya fadlan haddii aad dabcan muuqaalkan iyo barnaamijkan aan koorsatan aan bilaabayno aad danaynaysid like saar muuqaalka siina shargale si u gaaro dabcan asxaab badan oo hamuum u qabta waxyaalaha kan aan meesha tan ku soo jeedinayo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh